السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعانا wanaagsan dhamaan saaxiibada ku xiran janaalka waa qaybtii shanaad sidii wiilkii goobay wadada guusha qaybtii afraad waxa inoogu dambeysay sida wiilka uu yahay hadafkiisa koowaad inuu barto shay walba oo ku saabsan electronic wiilkii wuu shaqo galay wuu dadaalay wuxuu bartay shay walba oo ku saabsan electronic wuxuu baaray shirkadka dhamaan ka shaqeeya electronic wuxuu ku dadaalay si fiican ugu dadaalay sidoo xog dheeraad ugu ogaalaha wuxuu baarbaaray si wacan ayuu u baaray mid kamid ah wuxuu ka helay tababar si fiican ayuu u sii baaray wuxuu helay internet si fiican ayuu uga sii baaradana baaritaankiisa ayuu sii xoojiyay shaqooyinkiisa ayuu badiyay wuu ku dadaalay shaqaba ayuu sii dhiibtay shaqo walba oo dhameystiray shaqo walba wuu sii dhameystiray wuxuu ogaaday in hadafka kale u dhiibayo oo hadaf walbaana hadafkiisa kale uu sii gaarsiinayo wuxuu guda galay barashada electroniga si fiican ayuu u bartay wuxuu ku xijiyay barashada luqadaha si fiican ayuu u bartay wuxuu ku xijiyay barashada xiriirka si fiican ayuu u bartay wuxuu ku sii dadaalay barashada xakameynta nafta si uu ula dhaqmo dad wuxuu hadana bartay suuqgeyn si fiican ayuu u bartay wuxuu noqday qof ku habboon inuu shirkad yeegleelo ama dhiso ayuu noqday wuxuu ku dadaalay sidii uu ku dhisi lahaa wuxuu aruuriyay lacag wuxuu u sameeyay xaflad weyn wuxuu ku guuleystay inuu furo shirkadii markii uu furay 2 bilood markay dhisneed ayadana waa duntay shirkadu waa baaba'ay wuu yaabay waxa qaldan oo fahmi waayay waxa ku soo dhacay ninkii xigmad badanaha dib ayuu ugu laabtay sidii hore dhowr mar ayaa la yiri ma joog mar kale ayuu laabtay waa uu helay markii dambe markaas ayuu ku yiri haye iyo waran waxa ku helay ayuu ku yiri wiilkii yaraa wuxuu yiri waxaan sameeyay wax walba hadana waan guul dareys markaas uu yiri maxaa sameys wuxuu u bilaabay sidoo wax u sameeyay wuxuu yiri waxaan hadiday hadafkayga iyo himiladeyda ayaan xadid wax walba waan sameeyay luqadii ayaan bartaan ku guuleystay inaan shirkadii markaan dhisana waxaan u sameeyay suuqgeeyaal fiican dadka shaqeeyo fiican wax walba u sameeyay wax walba markaan u diyaarsheena hadana way duntay ninkii xigmad badanaha oo eegay wiilkii yaraa ayaa ku qoslay markaas uu yiri wiilyahow ninkii xigmad badanaha wiilkii yaraa inta eegay ayuu ku qoslay oo wuxuu yiri wiilkii yarow asbaabta oo dhan waa la timid ilaa aad gaartay heer lagugu finneeyay oo waayo waxaad hilmaantay kii sababta sameeyay oo ah Allah subhanahu wa ta'ala wiilkii yaraa wuxuu yiri maxaad leedahay hadalkan hore maadin igu sheegin xigmad badani wuxuu yiri markii hore oo aad halkan igu timid waxaad ii sheegtay kelmad cajiib ah oo waxaad igu tiri Ilaahay ducada wuu aqbalaa adoomadiisana wuu u dhow yahay markaas ayaad heshay aniga oo gacanteeda garabkaaga dul dhigaya laakiin markaad laabatay waxaad sameeyday qalad ay dadka badana sameeyaan kaasoo ah waxay iloobeen kii sababta keenay ee iska lahaa iyagana anfacayay waxa wanaagsan inaad si fiican u garato una weelayso qowlkii Ilaahay ee ahaa fa idaa cazamta fatawakkal cala Allah inna Allaha yuhibbul mutawakkil haddii aad goosato arrin Ilaahay talada saaro inna Allaha yuhibbul mutawakkilin Ilaahay wuu jecel yahay kuwa talada saartay wiilkii yaraa wuu ooyay wuxuu garan waayay si uu raali geliyo ninkii xigmad badanaha wuxuu ku yiri waxba hay raali gelin Ilaahay wuu inoo dhow yahay wuuna ina maqlayaa Ilaahayna wuxuu ka doonayaa inaad asiga tala saarato oo talada u dhiibatid had iyo jeerna aad xusuustid qowlkiisa ahaa ruuxii Ilaahay ka baqa ee sabra Ilaahay ma lumiyo ajirka dadka wanaaga sameeya ruuxii Ilaahay ka baqa oo sabra Ilaahay ma lumiyo ajirka dadka wanaaga sameeya kira wuxuu ku jawaabay waan ka xumahay aniga aad baan u qaldamay xaakimkii wuxuu ku yiri maya adiga ma aadan fashilmin laakiin waxa ka dhimna hal shay oo ah hal abuurka guusha aasaaska guusha ayaa ka dhimna inta hayno joogto qaybtii shanaad waxaan ka faa'iideynaa qaybta shanaad 2 shay ayaan ka faa'iideynaa 2 shay midka koowaad wuxuu yahay wax walba oo sameynaysid Ilaahay talada u dhiibo horta marka koowaad noqo mid Allah subhanahu wa ta'ala talada u dhiibta
ilaahay haddaad talada saarato arrinkaaga u dhiibatid ilaahay subxaanahu watacaala wuuna ku jeclaanayaa, arrinkaagana wuxuu ka dhigayaa mid fudud. wax walba ood jeclaysatid way kuu fududaanayaan. midda labaad maxay tahay? midda labaad waxay tahay sabarka. sabarka waa inaad sabartaa, waa inaad sabartaa. markaad sabarkaagu bato, alla subxaanahu watacaala ajirkaaga ma luminayo, wuuna ku abaalgudayaa, arrinkaagana wuxuu ka dhigayaa mid hagaagsan. haddaba ballankeenu waa inaan noqono kuwa alla talada saarta, midda labaadna ah inaan sabarno. haddaba haddii aad khasaartid, maal kaa lumo, wax kaa lumo, haddaba haddii aad xoolo kuwaagaa iyo waxyaabo kuwaagaa oo kale, wax haddii si kaa noqdaan, haddii wax kaa qaldameen, arrin kaa fashilmay, haddaba waxaa lagaga baahan yahay inaad noqotid qof alla tala saarta, sabrana. haddii aad tahay qof khasaaray, ilaahay nama khasaariye. khasaaro waa ruuxa gala cadaabka, ruuxa aan alla agtiisa naxariista ka helin maalinta yowm alqiyaama ayaa khasaaran. ilaahay nagama dhigo kuwa khasaara aakhiro iyo adduunba. haddii wax yar aad la kulantid, kaasi oo ah in maalkaagii wax si noqdeen, maal baad laheed, qof baa kaala gembiyey, xoolahaad haysatay, qof baa kaala tegey. sidoo kale waxaad lahayd caruur badan, caruurtii waa kaa geeriyoodeen, guurkiia kaa soo daahay, shaqo la-aanaa ku hayso, waxbaa si kaa ah. faidaa cazamta fatawakal cala allah, ina allaha yuxibu lmutawakiliin. mar walba xusuusnow, arrinkaaga alla u dhiibo, noqona qof shaqo tag ah. mar walbana alla subxaanahu watacaala haddaad barisid, arrinkana u dhiibatid, ilaahay wax walba wuxuu kaga dhigayaa khayr. midda labaad waa inaad sabartaa. ilaahay ma qadiyo ama ma lumiyo dadka sabra, dadka wanaagga sameeya ajirkooda ilaahay ma lumiyo. haddaba naftaada iyo nafteeda waxaan u dardaarmayaa ku xirnaanshaha ilaahay ayaa naftaada iyo nafteeda u dardaarmaya. haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir. haddaad hore noola joogtana la wadaag saaxiibadaada, subscribe saar. hada wabillahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh.